oo runtii ka dhawaajeen waxa weeye ninka Cabdirashiid xisbiga u jooga oo runtii aan jecelahay inaan wax badan aan ku dheeraan oo xididnaan nahay waxa weeye runtii reer taariikh lana ka soo jeeda laakiin taariikhdiisa waxa ka turjumaysa waxa weeye halka uu jooga iyo halka uu ka hadlay iyo halka uu yaalo Soomaalidu waxay tiraahdaa dambas dhala يعني waxa weeye ninka tafiirtii aadan isaaq ka soo jeedo oo la garanayo shakhsiyadiisa kuma dheeraanayo halka uu maanta isdhigay ee uu ka hadlaya hadallada boogta wallahi de waxa weeye isaga ayaa waxa weeye hays dhageysto qodobka labaad ee uu ka hadlay waxa weeye xildhibaanku waxa weeye waa nin boog loo shalay la soo daayay oo la xidhay oo yiri anu meeyhi cid xuduud kale ka soo talowday oo dalka waxa weeye fujo ka qaadata meeyay muwaadin Soomaaliland daranahay dadka wax wadalana waxba ka dhaxeeya waxba la isku qabsadaa waxba la isweydiiyaa anu waxa weeye dalkayga ayaan haddaan wax qabana u sheegtaa haddaan wax la qabana la qaba meeyhi waxa weeye nin marka uu wax ka waayo wixii uu ka waxa weeye sidii uu jeclaa baasuukaha u qaadanayo meeyhi oo waxa weeye duurka galaya meeyhi anu runtii boogta Cabdirashiid oo sheegay oo sheegtay inuu yahay xoghayaha gudoomiyaha xisbiga ucud ninka boogtali waxa weeye ninka habeenkii jabhadda leylaka lagu geynaya biyaha booyadaha adeerkii iyo isagu ay la dhacayaan waxa weeye halka maanta dabsdamisku yaalo arkaysan maanta lagu wareejinayay waxa weeye dawladda hoose lagu wareejinayo wax qabadka baasuulka ninkii la dhacay weeye haduu wax kala doonaya soo cadeeyo cadaynu ma baahna Cabdirashiid wax loo haystaa dad socday baa loo haystaa waxa weeye boogtu waa ninka ka codka ka doonayana xabada ku dhifanaya oo codka uu ka doonayo xabada ku dhifanaya ka waxa weeye runtii codka u hayana isiila codka boogtiisa ninkaan ogeyn waa ninka muwaadiniintii codka uu ka rabay habeenkii xabada la dhacaya war ma dhagaxda u codayni ninka Ilaahay ku dhaarshay habeenkii waxa weeye hantida dadka boobaya ee taqaranka boobaya waxa weeye ciidanka qaranka iyo cid walba dhibaatada u geysanaya shacabkii uu codka ka doonayay waxa weeye haddana duurka ugu jira xabada la dhacayay haddana codkaysi yeelay boogta kale heenin isogeyni waa ninka laakiin ninka waxa weeye aniga hadii la xiray haray baan u sheegay inaan ka mid ahay dalka Soomaaliland wada lahaashahuna aw yahay runtii inay dadku wax isku qabsan karaan laakiin wada lahaashaha waxa ka baxsani waa waxa buurta ka jooga Cabdirashiid xisbiga ucud waxaan leenahay horta meel kasta ay joogaan way u daawadeen mas'uuliyiinta gobolka u joogta iyo xaaladooda iyo waxaad moodaysaa in laga soo ururiyo harawa horteeda ha arkaan xaaladda dadka u joogay horta xisbiga lagu aaminay ha arka horta xisbiga ucud isagu hadallada oo ka jawaabayaan iyo waxa soo dhanba biisaaniyo ma dadka ay rabaan inay cod dad kale uga keenaan ma kuwaasa isaga isarki inamada yaryar ee kale runtii iyagana waa inama yaryar oo nadeero ahay iyaga waxa weeye waxba kama sheegayo runtii arijirka iyo waxan oo dhan waxa weeye ambiyadii Ilaahay iyo dadka wanaagsanaa iyo waxa weeye taariikhda dib ha ugu noqdaan iyaguna buurta libaaxley runtii waa district Boorama meel fog maaha talabaad wax qabadka Cabdirashiid oo ka dhawaajiyay ceel baxay Soomaaliland bay kamid tahay kama mid aha wadanada jaarka waxa weeye ka baxsan Soomaaliland ceel baxayna waxay wax la qabtaa dalka aniguna aan ka tirsanahay Soomaaliland sida ha u ogaado malaha maamka ka lunsane waxaan leeyahay war taariikhdii reer kulaha waxa weeye ad ka soo jeeday iyo qoyska karaamada leh ee ixtiraamka u hayno ilaaliyo dhowr halka aad taagan tahayna isagow waxaan leeyahay xisbiguna qaran dumis inaan loo dhiibin hal laga ilaaliyo in laga ogolaadana maaha nin qarankaba duulaan ku ah oo wixiisa wanaagsan ka gubaya
oo wixiisa wanaagsan ee haldoorka ka tooganaya oo hantidiisa boobaya in mas'uul baa tahay dadka soo saaro iyo codeeyo lama aha dadku say isku aaminayaan ninka xabadda ku dhifanaya say isku aaminayaan